baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xisaabtamaya. baarlamaanka tobnaad waxa uu saxeexay 2 sharci oo kaliya 2 sano oo uu jiray, waxaana ka siyaa badan in 29 sharci oo ka soo baxay golaha wasiirada ay ku dhex milmeen baarlamaanka labadiisa aqal khilaaf iyo dayac ka dhex jira awgood. haddii hawsha koowaad ee baarlamaanka labadiisa aqal ay tahay sharci dejinta uuna yahay baarlamaanka ugu tirada badan adduunka marka loo qaybiyo dadka ay matalaan, uuna yahay baarlamaanka ugu miisaaniyadda iyo kharashaadka badan marka loo qaybiyo hay'adaha dawladda miisaaniyadda dalka, wax soo saarkiisuna uu yahay 2 sano iyo 2 sharci, yaa kula xisaabtamaya shaqo gudasho la'aanta intaas leeg. dalkeenu waa dal shuruucda uu ku dhaqmo badankeeda la ansixiyay 50 sano ka hor, waxaana ka sii daran in sharciga la dagaalanka argagixisada uu weli dhex yaalo baarlamaankii 9aad iyo kii 10aadba. lamana oga sababta ay u diidan yihiin iyaga oo kala fadhi kasta dadka u sheega inay ka doodayaan arrimaha amniga, dooda kadibna aysan jirin wax ka soo baxa oo ay la wadaagaan dadka. bilowgii kala fadhigii afraad waxaa dhowr maalmood ay ka doodayeen arrimaha amniga. guddiga amniga iyo difaaca baarlamaanka ayaa doodii lagu wareejiyey si ay qaraar ugu soo bedelaan, laakiin 6 bilood kadib lama oga doodaasi meel ay ku dambaysay. ma jira miyaa baarlamaanku hab u xisaabtamo? haddii hawshii baarlamaanku ahayd sharci dejinta iyo la xisaabtanka golayaasha dawladda ayna ka gaabiyeen, yaa iyaga kala xisaabtamaya hawsha loo igmaday? waa su'aasha ilaa iyo hadda taagan.